walaalo badan ayaa inaan maanta isku sacbinno geeri ugu dhacay berri inaad ibeddeshaan rabaa marnaba xumaan kuma rabno wuu naga dhacayaa gefku soo maahan laakiin adigu sidaad adiga walaalka uga danqato xanuunkaas dhammaan ha idiin wada taabto mid oo gol lama arko aniga walaalahay hooyaday dhammaan waxay joogaan soo gurigii maahan in layga taabto ma ogeli adigana wiila ku waardiyeynaa sidaasoo kale taagan yahay ma ogaa kartid adigu hadda xaafaddaa soo dhex maray nin walba muxuu leeyahay xaggaana nugu war xaafadda dhallinyarada idin dhibaysa meel ay naga timid lama arko adinka laydin dhex nool yihiin meeshaanay fafadhiyaan ma taqaanaa wuxuu badbaadayo waa wiil yar mana dili kari sudhibiiba baangadda yartaa carruurnimo u geysay walaal haddaad dhashayna kuleesh iga geey ilaa dhibaatada ay haysato uma jeediine hooyana markaa ka qabata xay ku leedahay alla maxaa masaajid u soo dirsaday daawaa u soo dira hooye ma ogtaa horta hore laakiin anu waa qaadan lahay xanuunkaasoo aduu waa dhegaysata anu waa dhegaysa waaye hooye waan ogahay aaday inoo jeceshaa qof aan ka dhegaysan karna lama arko waa inaan garowsan karno ayada xanuunka wiilkeeda u taabtay laakiin asagiyaa dhibaya kuwa ku jira meesha ee samaynaya walaal ha samayn kuuma fiicna waxaad dilaysaa waa walaalkaa kale laakiin maanta markaa baangad barato birrina maxaa kaa baranee intaa mas weyn ugu noqonayd inaan ku reeba ku filantaa didaal adiga laftigaagu intaanan annagu kuu soo jeedin caradayaanu lagu kilkilin oo hooyo iyo walaal yaa laga xanaajin waryaa waxa la samaynaya macquul ma ahan gabdhihiyaa toorrey lagu qabanaa aaka layskaga soo teg marka aaka soo xaalifinnay ee tuugadii aaka iskaga daba tagnoo la yidhi kii aaka lagu qabtaa lagu dilo toorreyda markaa ku qabato aa ku dishan xaala leeya hilib inuu jarjaraa loo soo diray waa isbeddeshay baasha familay aadday ma beenaad ka sheegaa maxkamaddii markaad taga maxaa layle ma ogsoontihiin baa dilistaa taa hilibka cunugii jarjaraya dishay